تواصوا بالصبر صدق الله العظيم. كلمة حسنات ودرو كلمة بشدة يدل مركز تكية ساقيدا كلا دوان بشدة أي باحدة وقبته وأنا الشركات ومض وضلات هاي كنا عام بحد هذا الشيء إنك غير قادته بعثة الرعاة وقصة أصلا ومض أيكش قيسته يوحنا بسرعيه تاسو كم إذا فايدوين كلا جاي لذاتك إن قيد كم إذا ومض الصيو مركب واحد بيقدر إنه أول شيء waxaan yeelnaa ujeedada aynu ka leenahay halkan isugu nimid oo inoo soo jeediyo maamulaha guud ee Global Hospital Polyclinic Dr. Abdirasaaq Yusuf محمد على آله وصحبه وسلم runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynahayga runtii dhibaataysan waxaan ilaahayna uga baryaa inuu dhibaatada ka dulqaado waxaan runtii aan iyadoo kalena aan uguna bushaareynayaa in shirkadda Telesom ay naga caawisay in aynu caruurteena si dawo bilaash oo helo muddo markaanu anaga iyagu soo tagnay muddo sanada inaynu dawooyin bilaash aynu siino runtii waxyaabaha kale inuu qaban doono inaynu baaritaan u sameeyno inaynu document sameeyno iyo inaynu ogaano horumarka uu ilmuhu bal sanadka gudaheeda maxay iska bedelay haddii aan runtii ka hadlo dhibaatadan macaanku waa dhibaato inagoo kaliya maaha adduunka oo dhan ka jirta mesela waxa la yiraahdaa meelaha qaar adduunyada waxay maraysaa 15% dadka macna population ummadda halkaas ku nool 15% ayaa macaan qaba runtii waa nasiib darro weyn inagu population ahaan ama Soomaaliland ahaan dad ilaa 4 milyan la inagu qiyaasay yaalkeena ka yar ilaa 5 sano ilaa waxa lagu qiyaasay 800 oo kun meelaha markaanu eegnay mesela waxa la og yahay 500 ee ciyaalaba mid kamida ayaa wuxuu yeeshaa macaan 500 ilaa 600 ba mid markaanu halka laga xisaabiyo runtii ma hayna tirkoob dhab ah laakiin waxa la ogsoyay ilaa iyo 1200 ilaa iyo 1400 in ku dhawo ciyaalihi in ay xanuunkan inaga qabaan oo ay ku kala fiiqsan yihiin iyo magaalada runtii anagu iyo Telesom oo muddo dheer ka soo wada shaqeynay waxaanu ummadayadaasi dhibaataysan ee miyiga magaalo joogtaba anagoo ka bilownay imika magaalada Hargeysa in aanu fidina hawsha oo aanu gaadhna ilaa iyo 1500 waa way ujeedadayada muddada dheer imika laakiin waxaynu haysanaa waa konton ciyaal oo shirkadda Telesom inaga caawisay runtiina waxaan leeyahay waa contribution aad u wanaagsan oo mujtamaciina ku soo celiseen waxa kale oo nasiib daraa runtii inooma qorshaysna ilaa imkada inaynu yeelano xarun caafimaad oo aynu dadkeena danyarta ku daryeelo mesela inagoo imka ilaa 1500 ciyaal ku dhow inay inoo joogaan oo buka ayaa sanad kasta waxay nagu soo kordhayay 100,000 oo ciyaal ah caruurta dhalata waxa lagu qiyaasay inay yihiin ilaa 100,000 oo ciyaal ah waxa laga yaabaa 100,000 oo ciyaal ka sanadka inoo dhashay inay 200 oo ciyaal oo kamidii ay iyaguna qabaan macaan runtii wax loo baahan yahay in maskaxda aad looga hayo oo sidii dadka loo caawin lahaa aynu ka fikirro xarunteena runtii aanu imika furray Global Polyclinicna waxa ma aha ujeedadoodu inay dadka uun ka shaqeysato laakiin waa inay u raadiso samafal meel kasta oo ay ugu helayso bulshadeeda runtii waxyaabaha kale xitaa fikirka nagu soo dhaliyay waxa kamid ah 50% population keena ama dad weynaheena waa dad dhaqaalahoodu hooseeya 60% taasoo macnaheedu yahay macnaha 3 meelood marka laba loo qaybiyo runtii waxa la yiraahdaa marka tirkoobyada laga soo saaro waxa la yiraahdaa waxay ku noolin wax ka yar $1 maalintii halka marka ummadaasina runtii waa ummad u baahan in wax badan la taro in badan loo fikirkuna runtii anagu naga bilaabay xaruntayada caafimaadka global laakiin waxa runtii aanu hadaanan taageerahay lahayn oo aanan ka helnayn shirkadda Telesom shirkaddeena isgaarsiinta Telesom oo runtii meel badan ka qayb qaadanaysa waxa weeyaan way nagu adkaan lahayd marka waxa weeye ujeedadanu xarunteedana oo asaasna waxa weeye in bal dadku adeegyo fiican ay helaan waliba ay dadka danyarta wax kasta u raadin karayaan ay u raadiyaan ujeedada runtii aanu ka leenahay anagu xarun ahaan waxa weeye in uu ilmuhu waxa koowaadeen u sameeynaa waa in la keergareeyo keerka maxaa ku jira waxa ku jira in ruuxii aqoon la baro maxaa xanuunka maxaa lagu garanayaa hadduu badan maxaa lagu garanayaa iyo hadduu yar maxaa lagu garanayaa intaba inaanu anagu educate karno taasoo ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye empowerment baa la yiraahdaa sidii loo xoojin lahaa
aqoonta dadka waalidiinta si ay ilmahoodii markaaba uga warhayn karaan waxa kaloo ka mid ah masalan haddii aan waxaan anagu xallin kari weyna ay yimaadaan inaynu cisbitaaladan magaalada ku yaalla ee waxaynu la qaban karaya aynu runtii la kaashano annagoo xidhiidhka soo samaynayna masalan waxaa inala jooga dhakhtar ka socda cisbitaalkan dr maxamed aadan sheekh allah naxariiste waa ninkan caddaanka halkan fadhiya waxaanu kala hadlaynaa in kays kasta oo culus oo waxba loo qaban kari laayahay inaanu u gudbin karro si sahlan loogu sulo waxaa kaloon iyagana xidhiidh la samaynay cisbitaalkan manhal oo runtii qalab caafimaad ilmaha waxa weeye waxyaabaha uu aadka ugu baahan yahay waxaa ka mid ah in la jeegareeyo indhihiisa sanadkiiba mar runtii macaanku nasiib wanaag manhal waxay noo rakabtay qalabkii ugu dambeeyey oo awal dibadaha laga raadsan jiray marka ilmo kastoo macaanku dhibaato ka keeno waxa weeye si sahlan baa waddankeena wax loogu qaban karaya waxyaabaha kale aanu runtii aynu hawshan ujeedooyinka kale waxa weeye waar wadooyinkeeniba oo inaga dhisanaye dadkeen inagu ma noqon karaa ummad isku talageli kartaa oo caafimaadkoodiina usoo bayri kartaa runtii anigu waxaan isleeyahay waa wax laga qaban karayo waa wax runtii aynu inagu qabsan karayna in badan oo ka mid ah haddii aynu la arko inaynu si fiican hawsheena u qabsanayna caalamka in badan oo ka midi waxa weeyaan wayna caawin doontaa runtii ballanqaad baanu ka haysanaa hay-adda WHO inay nagu xidho xidhiidhada caalamiga ah iminka 50 baynu haysanaa laakiin waxaynu doonaynaa muddo yar gudaheed inaynu 1500 ciyaalkee danyarta ah in naga dhashay inaanu u raadino waxyaabihii loo baahnaayo dhan hay-adda UNICEF kale runtii waxay tidhi bal annaguna waxaanu qiimayn doonaa meelihii aanu idinka caawin lahayn ayaynu filigooda qabanaynaa waxa kaloo runtii la xidhiidhinaa dhammaan hay-adaha caalamiga ee runtii wax badan tari karaya idinku runtii waxaad tihiin dad مثلا والد oo aan xiriir badan iyo aqoon badan iyo sidii loo shaqeyn lahaa aan la lahayn laakiin anaga taasi runtii way noo saalantahay waxaan qorshaha runtii مثلا waxyaabaha iminka ilmahan doonayna inaan u qabano marka ugu horeysa waxa weeye in loo sameeyo file lagula socdo xaaladiisa marka ugu horeysa waxaan sameyn doonaa shaybaadhada waxaanu qori doonaa muddada xanuunku soo hayay iyo sida hawshu soo socotay marka dambana waxaanu sameyn doonaa haddii la yiraahdo marka dambana haddii la waxaanu sameyn doonaa inaynu shaybaadha ka qaadno shaybaadhadaasoo kaliis wax dhaawac soo gaadheen miyay dhiigaggiisu sidee yihiin iyo kurinkiisu hadduu ilmo yar yahay siduu u socdaa intaba oo waxyaabaanu runtii doonayna inaynu sameyno baseline-ka loo yaqaano waxa kaloo qorshaha noogu jira runtii kambaniga ku heshiinay in la qabto runtii barnaamijyo wacyigelin ah oo ruuxa aynu masalan waxyaabaha laga baraya waxaa ka mid ah xaggii masalan irbadii iyo dhibaatooyinka ka iman karaya sida ugu wanaagsan loo isticmaali karo waxaa kaloo ku jira arrimaha masalan waxaa ku jira xaggii cuntooyinkii oo kale iyo xaggii runtii socodkiisi iyo exercise inteleg ayuu samayn karayaa haddii ay dhibaato timaadaan runtii waxaynu la xiriirinaa cisbitaaladana waaweyn runtii mashruuc telesom aanu ka wada shaqeyno weeyaan muddo hal sanaa socon doonta runtii kambanigu wuxuu noo soo gudbiyey marka 6 bilood sanadkan laakiin anagu markii wixii aanu helay isku maaraynay waxaanu u qorsheynay in muddo sanad ah runtii ay hawshaas socoto qorshaha iyaga muddada dheer waxa weeye inaynu samayno xarun lagu daryeelo dadka macaanka qaba dad waaweyn iyo dad yararkay doonaanba ha noqdaane taasi oo runtii wax alla wixii loo baahan yahay laga heli doono annagoo runtii iska kaashanayna hay-adaha WHO iyo UNICEF iyo cid kastoo waxayna la qaban karaysaa marka inaynu barnaamijkaasi ballaaran aynu noqono aynu waxa weeye waddankeena oo dhan aynu ku filaano oo dadkuna adeeg bilaash ay helaan aad baana u mahadsantihin aad buu mahadsan yahay waxaan mar labaad sidaa u salaamayaa masimaha guud iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xamdan dahiye oo hadda kala soo qaybgalay xafladda oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda maanta inala fadhiya si aynu waqtiga uga faa'iidaysano waxaan hadda u yeedhayaa shirkaddii maalgelisay kelmaddeedii waxaan yeedhay maamulaha نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهي وحان سلامية كسوق القرياشة وأيقوه ريان هو يويكا والدين تاعي حروت بكاكا يا بياشة مرتشرة تكرا حفلتنا كسوق القرياشة مدحة WHO دكتور آسيا وكيل وزارة العافمات كاركتر عيسى iyo sarmaas oo ka socdaysan cusbitaalka maxamed sheekh caruurta waxaa kaloo salaamaya agaasimaha guud wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiirka ku-xigeenka arrimaha bulshada iyaduna inagala soo qeybgelaysa xafladda oo iyaduna soo gelaysa
guud ahaan xafladan ujeedadeeda aan ka leenahay waxaa faahfaahiyey doctor cabdirasaaq oo shirkadda Telesom iyo Global Star iska kaashadeen. Annagu shirkad ahaan ujeedada aan ka leenahay ayaan kusoo koobi doonaa 3 qodob. Ujeedada barnaamijkan aan ka leenahay waxa weeye ugu horreyn inaan bilowno initiative cusub, hal abuur cusub inaan bilowno oo nooc bulshadeenu ay isu kaashataan. Waxaan rabnaa maanta inaanu bilowno inaan idhaahno qayb ka mid ah dadkeena buka ayaanu kafaalo qaadanay si bulshada inteeda kalena ay u bilowdo maadaama cudurro badan ay waddanka ka jiraan baahiyo badanna ay waddanka ka jiraan. Horta ujeedada ugu weyn ee leenahay waxa weeye in aanu nidhaahno hal abuur cusub baanu bilownay oo ah bulshadu inay dhinaca u soo jeedsato la iskana kaashan karo. qodobka labaad runtii aan doonayna inaanu ujeedadeeda ku tilmaamo waxa weeyaan inaanu tilmaamnay ama bartilmaameed ka dhiganay dadka macaanku hayo gaar ahaan carruurta weliba danyarka ah oo aan iyagu iska bixin karin dawooyinka iyo baahiyaha uu u baahan yahay xanuunkani. iyadoo waa ujeedo kale oo aanu ka leenahay inaan dadkaasi ku taageerno baahidaasi ay qabaan. waxaa kale oo aan runtii ujeedadeeda ka mid ah oo ka mid a ujeedooyinka lagu riixay inaan hawshan gallo xawaaraha uu ku socdo xanuunkani markii aan aragnay waxaa la tilmaamay ilaa 382 milyan dunida oo dhan inuu xanuunkani hayo, halka laga tilmaamay 17% ama 17% dadkaas ay carruur yihiin. baahi xoog inay dhinaca ka jirtana waanu aragnay markaan isu geyno si doctorku sheegay dhinaca Somaliland 500 ilaa 600 carruur oo hal qof ayuu xanuunkaasi asiibay oo ku dhow ilaa 1500 carruur. barnaamijkan Telesom imika iyo isbitaalka Global iska kaashadeen horta waa tijaabo pilot project oo aan ugu talagalay horta inaanu tijaabino mashruucani bal sida uu dhaco. sida doctorku sheegay hal sano ayuu mashruucani socon doonaa. waxaan ugu talagalay runtii in dadka caafimaadkooda la sheekareeyo isbitaalku maadaama ay register-garaysan yihiin uu la socdo xaaladooda caafimaad, baahiyaha ay qabaan caafimaadna iyo agabkana laga taageero. mashruuca markaanu aragno waxa ka soo noqda ama falcelinta ka soo noqota waxay shirkaddu ku tala gashan tahay inay barnaamijka ballaariso iyadoo kala shaqaynaysa hay'adaha gaarka u leh shaqooyinka sida imika waanu Global Hospital ula shaqaynay inaanu sii ballaarino isla markaasina aanu kor u qaadno mujtamaceega waxyaabihii aanu la qabanayn. bulshada iyo dalkan aynu ku noolahay baahiyo fara badan baa ka jira. maanta runtii shirkadda Telesom maadaama adeeg bulshada u qabato ugama jeedna barnaamijkan xayeysiis, waxaan uga jeednaa taageero bulsho oo aan tilmaamayno in bulshadeedu ay baahida noocaasa qabto iyo kuwo kale oo badan. waxaan sida xagga hore ku soo sheegay uga jeednaa inaanu tilmaamno ganacsatada kale iyo dadweynaha Somaliland dhammaantood oo aan idhaahno sidaana waxbaa loo wada qabsan karaa. halkii aynu kaga tiirsanaan lahayd hay'ad heblaayo oo keliya in hay'ad heblaayo iyo shirkadaha iyo ganacsatada iyo aqoon-yahanka sida imika Global Hospital oo kale in la iskaashan karo, wax la isku biirin karo, waxna la wada qabsan karo, lana taageeri karo halka aynu ka baahida ka qabno. waa sidaas ujeedada runtii aan ka leenahay. waxaana rabnaa runtii in si dadka buka ay horumarka waddanka qayb uga noqdaan in caafimaadkooda laga shaqeeyo, si qofka buka uu waxbarashadiisii iyo u helo noloshiisii in caafimaadka laga taageero. waxaynu u baahannahay qofka buka wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan, ama physical ha noqoto oo dawooyinka la siinayo iyo waxyaabaha loo qabanayo, ama psychological ha noqoto oo qofkii la sabooro, la wacyigeliyo, loo tilmaamo. runtii dadku waa aqoonta lahaaba ay nala fadhiya waa la tilmaami doonaa. laakiin annaga ujeedadeedu waxa weeye dadkeennu inay caafimaad ku wada noolaadaan, dadkeennu inay waxbarasho ku wada noolaadaan, dadkeennu inay xuquuqdooda wada helaan. annaguna intii aan qaban karno ee nagu beegan ee doorkayga ah inaanu ka qabanno weeyaan ujeedadeedu.
gabagabadii waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan kula dardaarmo bulshooyinka in arrinta waxwada qabsiga iyo isku biirinta talada maalka iyo garaadka iyo aqoontaba inay tahay baahi aynu qabno haddii qof uu lacag bixiyo mid kalena aqoon bixiyo mid kalena farsamo ku daro mid kalena uu dhinac uu hayo uu ka caawiyo waxaynu gaari doonaa waxaynu doonayno ilaahayna waxaan ka baryaynaa dadka xanuunkan asiibay iyo carruurtaa yaryar ee cimrigoodii harsan yahay in ilaahay ka dulqaado waa ramadaan waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay u fududeeyo xanuunadaasi annaguna wixii aan taageero bixin karna insha allah waa dadaali doonaa saas ayaynu soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كانوا واحد يقول بيها وكيل كسومال WHO مرو عاصمة اسمع. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبينا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحن سلام يا والدينك عرورت ما أنت عرورتوري وحنوكا لوغو باقي wax laga qabanaya halkan la timi waxa aan mahad u celinaya ilaahay baa mahadle ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan mahad labaad u celinaya cid alla cidii arrinkan ka fikirtay iyo cidii wax ku darsatay iyo cidii maxay ahayd taageertay khaas ahaan shirkadda Telesom oo aan runtii aad iyo aad ugu bogaadinayo xanuunkan adag ee dilaaga ah ee dhibaato la noolaanshaha ah ee u babacdhigeen inay bulshada ka caawiyaan halkii ugu muhiimsanayd ayay ka bilaabeen waa badantay baahida bulshadeena way badantay waxay u baahan yihiin laakiin ilmo yar oo soo koraya oo xanuunka macaanka qaba qofka u gargaaray yiri waan u gargaarayaa u babacdhigay ilaahay baa gargaar leh waxa weeyaan geesi waa qof geesi ah waa dad isu tagay oo fikiray oo yiri lacag baynu haysanaa aynu caawino bulshadeena baahan bulshaduna wuxuu bay horumar ku gaadhaa marka ka fikiraya ee cilmiga leh ka fikiraya ee maal kale ka fikiraya ee aqoon leh ama skill leh garanaya halka uu wax ka taageerayo marka uu badka soo dhigo laakiin marka la baxaylo bulshada horumar gaadhi mayso insha Allah ta'ala waxa halkan laga sheegay oo maxaa heeday qolooyinkii igu horeeyay sheegeen in xanuunka maanta loo furay loo dahfuray macaanka xarun lagu xanaaneeyo oo magaca insha Allah noqon mayso waxay noqon doontaa xarun lagu xanaaneeyo oo qaarkood badan ku bogsadeenba qaarkood badanina dhibaatada ay la nool yihiin kaga hadho imaka waxaan arkayaa nin halka fadhiya ilmo yar buu haystaa daqiiqad walba afku wuxuu ku qabanaya subhanallah macna ilmi yar uu gubanaya ma joogi karayo hadaanu ama biyo cabin ama cunto cunin waxa laga yaabaa cuntada cunayaan hadana inay dhibaato ku samayso marka waxa weeyaan xanuunku xanuun sahlan ma aha idinka ubadka haystaan waxa loo baahan yahay inaad dul qaadataan dadka u soo babacdhigay geesiyaasha ah ee maanta yiri xanuunkaas aan u shaqaynaynaa inay la yimaadaan wixii looga baahnaa waxa loo baahan yahay in la yimaado dad u shaqeeya xanuunka marka ay qoladu xarunta furto waxaan u baahanahay dadkan siin lahaa daryeelka ama care providers ka loo yaqaan oo leh cilmigii leh oo skillkii leh oo garanaya ilmaha yar 2 saacadood ka bacdi aanu cabay maxaa ku iman kara oo dabadna wixii ku iman kari lahaa wixii uu kaga daweyn lahaa u diyaar yihiin oo dhaq ku siinaya insha Allah waxa loo baahan yahay ka hortag baa loo baahan oo bulshada massive community-ga loo khudbadeeyo loo sheego macaanka sida looga hortago sida la isaga ilaaliyo biidnillaahi alkariim waxa loo baahan yahay diagnosis-ki qofka in la ogaado inuu xanuunkii qabiyan kale waxa jira dad aan xanuunkaba qabin oo dawada la siiyo waxa jira qof markii uu ku dhacsan yahay dawadii iska qaata isagoo kacsan dhow soo qaata waxa soo dhan in dadka laga maxaa heeday laga jaahi saaro waxa loo baahan yahay control-kii baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay resource-kii dhakhtarada farmeesha iyo qoladan furtay qalabkay dhigaan meesha hadduu ka bato dadkii imanayay ka batiya baahida ka badato
waxa weeyaan waa wax meesha ka maqan resource-kii baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay management-kii maamulkii sare iyo kii hoose ee xarunta intaba waa loo baahan yahay insha allah waxaa loo baahan yahay dadkii inta la tababaro carruurta haystay carruurta lafteedii waa record iyagu waa maran yihiin wixii lagu shubo waa qaybayaan sidaa u noolow marka la yidhaahdo way qaadanayaan iyagana in la tababaro maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay waxa la yidhahdo cognitive behavior in ilmaha maskaxdiisa counseling loo sameeyo wax loo sheego uu sidaa ku fahmo xanuunkiisii iyo arrimihiisii insha allah waxaa ilaahay ka rajaynayaa waxyaabaha xaruntaas u baahantoo dhan inay maxaa ahayday dhammaystirmi doonaan carruurteenna xanuunkaa qabta daraasadda la sameeyey run ahaantii ma yara waa daraasad weyn markaa waxaa loo baahan yahay in waalidku carruurta keenaan xaruntaa si ay ugu maxaa ahayday loogu baaro oo loogu daweeyo oo kii arrinkiisu sii adag yahayna dhakhtarrada isbitaallada ay dhakhtarradu sheegeen loo gudbiyo waxa weeyaan arrin qiimo leh waxa weeyaan arrin wanaagsan annagu hay-ad ahaan waxaanu nahay hay-adda caafimaadka adduunka waxaanu nahay hay-ad technicala oo caawisa wixii farsamo ahee looga baahan yahay goobta caafimaad oo dhanba insha allahu tacaala waxaanu isku dayi doonaa wixii aanu ka caawin karno ee annaga mandate-ka iyaga ah inaanu ka caawino insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu سيكون شغالي وسيكون كويسية بالبشرة نروح شغل علي إسماعيل ومن تشارة الدراسة البشرية وحنا بنأتون لها هوشنا إنه وفرنا مع طلها وقيمة بدل له ويسكع شباب سكرة التنسوية جلوبال هوسبيتال وأكبر كلنا لقى بلاد كرو حنونا حاسة على ذلك المقصود بدلية وبالشدة نتصير إنه قبسان كرنو أما إنه هاي قرن واحد بدن قبسان كرنو وانا طبعا لسوي ما دوم باهم إن إشي قرن غير شو وحين رفضيا وسرديه مطمئنا وسرد القيسية بما بالشدة سرد دليل العيارة يهيد المليون شوها صدق دوا بعثنا وين لا أرينا بالشدة واللي بقى يبيه يقول يمسنا وحن هذا ويليا إن كلمة السيو كلمة أورك دقاتير تسومالا أما وزارة العافمات كالغضابة دكتور عيسى عبد الشامع بسم الله الرحمن الرحيم والدينتا كانت أبتودا قواء معانك وسكحيينك وسعادة القدسية أنها مرشدة مروة عاطية اسمها وسعادة عيارها مضاحة شركة تامسون مضاحة شرطة جلوبال بوليكلينيك بعض الصحافة لما تفهم السلام يا صاحب الصحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أنا قوة ضيّة وسعادة عافمة كوكيلا سمعت أنا قوة ضيّة مقع روح الحقيقة وحنقول ما نضيع سوق القابياش شغالة أكمين كا يو مصطلح لماذا يوقفين كذا سميو إسكاشدين جلوبال بوليكلينيك إني دكتور معاك خبا شوفنا بيت ميلز لو يقانو شيء تركيا أيوة خبرتان يقول سمية عمود أخذ كشيء تعريف معاك عروضه استميت به ما المبارز توصل سمية لكن استميت كأسوها ترى فرضاً ما تذكر رأيه عندي تقول نقطة مرة كشغين تري أستاذ القرآن هي أنا سجوكتي وحنا حسوسا عروض فرضاً وكيم جتي مجال الحيلة يميجر فاصل عن سيكني دولة معاك أو أي كل ما بقسم بنفسه مركا حدي الدنيا أن تطلع سنة مليون فلان كرول سوي دولة تاجر كرينيا لو بدك تري الحجران نم كرون جديد كسر سكرتا يمعاك أو أحد السنين اللي فلان كويس مركا أنت لقي معدو كأورهاني كوسارها وحنمر كسر فاعل لك التكني إيش كسر دكتور الفوانس وحنا ما يا تيكا بول كلينيك جلوبال بول كلينيك وأشتغل مواطنين سمعت عنا فكر ونعكسك يعني innovation إن دكتور الفوانس يدو أي كتير إن السمايا الفعل كريتيريا
oo ah ilmihii markii ku daweeya ugu yimaada clinicoodii ayay diagnosegareeyaan calaamadiisna eegaan inay further management ama wixii loo sii baahnaa ay u diraan ustaadka maash oo ah ustaad public hospital oo free care bixiya bilaash ku daweeya islamarkaana xiriir oo samaysteen waxaan xasuustaa bil ka hor ayaa waxaa intii company noofalera oo dhakhaatiirta tababarayay marka waxaa la weydiiyey maraleedin diabetes center goob lagu daweeyey macaanka marka waxaan kuna diwaad la samayn doonaa tanaa noqotay waana ugu mahadnaqaya mar laba wasaaradda caafimaadka siyaasadeeda gudaha ka mid ah inuu qof kasta helo caafimaadka kuna naalo waxyaabaha strategy ugu soo socda waxaa ka mid ah in la dhiso xogta caafimaadka waxaa kaloo ka mid ah in la sameeyo adeega caafimaadka la gaarsiiyo goobaha aan la gaari karin islamarkaana mobile teams oo sameeyo gaadha dadka reemiga ee meelaha ku jooga telesom waxaan mar labaad ugu mahadnaqayaa shaqadan muhiimka ee waxayso ummadeeda iyadoo aan ugu boorinayo inay sii kordhiso waana igu mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عيسى عبد المسيحي إنه كانوا إنه كلمة سينا مع والدين كتصور قلي حفلة أو شباب قبضين ووالد يوسف عاشر يبقى ذوية مركاو لما توصل عندي مركاو ما كان يهرب تبرعوا شو بس تركين دبش غير حضور الأصوات يهزم مشكلة لكن وحرار يعطى هي جلدة وضطكم مدريمي وحنا مدريمي تقفكي معها قوة قفكي ووالو يحي لبعضها أدو مدريمي هذا يسجل بلبل كحية مركو ميرك وقحو مركو ميرك كاتبو بالبيئة وحياته أما ميرك وبدبل يعطى مروا بعضهم نحي راكسة وحدا كيسا بيجيسي وحكو يرادسو ama uu kacaya ama hoos ugu dhacaya waxaa loo baahanyay meel lagu kaydiyo qabr ama talaajada dhibaatooyinka horta dadka haystaan horta waa kuwa ugu badan oo kuama imika waxaa loo baahanyay maada ku mahadsantiina bilowday hawsha horta waa ku mahadnaqaya dadweynaadana aadna waa uga dhibaataysa macaanka caruuha qaba meel kula haagnana maanaan garanayn qalbigayna waa buuxis laakiin waxaa lagu mahadnaqaya mar haddaa maanta noogu baaqdeenoo gargaar loogu fidiseen waana ilaahay mahadkii waxaa lagu sii mahadnaqaya shirkada telesom iyo caafimaadka waxaa usu aniguna ku mahadnaqaya dhammaantii intii soo fikirtay ee arrintan meedadan ee ugu tala gashay ee dila caafimaadkana ka qaybgeena dadkuna aada u dhibaataysnaa هذا القانون نفسي بديل ومن هذا الكلام ده هذا بس يراو بدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كرهني يا ماسو سيطان نوران إلكام تتابع إسميريكال كونديرت يختلفون. I'll only say very short words as I'm speaking in English, and I know not everybody will understand me. As you know, Mass Hospital offers free treatment of illness to children from birth until 14 years of age. And one of the things we see frequently is diabetes. And diabetes, if it is not treated, can be a very serious illness, not only in the short term, but in the long term as well. So proper treatment of diabetes is extremely important for the child's immediate health and for the child's long-term health. So I'd like to thank Telesom for providing this care to these children, and we at Mass Hospital look forward to establishing an ongoing relationship with Telesom as well. So thank you to Telesom for inviting me here, and thank you to all of the parents and the children for coming along today. Thank you. Thank you, Mr. Noble. وأنتي أي سنريد نوشي مستر نيكولا
wuxuu ka hadlay cusbitaalkan maas cusbitaal wuxuu ku yaalla dhakhtarka weynaagteeda waa maxamed aadan cusbitaalkan uu dhisay friigumada weyn ku bixiyaa waxaana inoo sheegay dabada xanuunada loogu yimaado inay u badan yihiin diabetika ama xanuunka macaanka mustaqbalkan insha allah waxyaabaha ku darsan doonaa qorshe ayay ugu jiraan waananu ugu mahadnaqaynaa waxaynu iska sii wadanaynaa hawlaheenii qorshaha si ay ugu dhawaano waktiga mas-uuliyiinta oo runaantii taankioo aada isu kurayo inuu ka faaidaysanaysaa dadka xanuunsanayo oo muddo badan fadhiyey bal hal kelmada waxaynu siinaynaa hooyo ka mida hooyooyinka maanta inagu martida halkan waa nimcaha ismaaciil dadka kale maxaydiida macaanka wada aan wadno in si fiican loo soo dhaweeyey ee maxaydii wanaagsan waxaan ka rajeynaa carruurta socod dhibaataysan waxaanay hooyooyinkii carruurta maxaydii hayeen macaanka dhibaatadooda ay u wadeen waxaanu ka rajeynaa sidaan loo soo dhaweysay wanaagsan inay wax noola qabtaan wax weeye carruurtaasu marka meel joogto amba ay isku tagaan amba imtixaanaadkan waan ka warwarnay warwarkoodan haya habeenkii waan mirnaa waxna maxay ka caawiyo oo waxna siiyo maxay ka iibadaan maxay ka caawiyo wanaag waxa weeyaan sidaan loo soo dhaweysay wanaagsan ayaan ilaahay ku rajaynayaa inuu caafimaadka ilaahay naga maxay dulmaado oo ilaahay caafimaadka aan naga siiyo وساسا ورجينا وملاتين المهدي. السلام على رسول الله والدينتا عروتا حنونكا معاك لنور مسؤولينتا مدرسة كسوقين قلي مدرسة شركة التلسون هي حسبتك قلوبا وحنا السلام يا صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii munaasabadan maanta aynu sugunay waa munaasabad runtii tilmaanteeda leh oo qiimo gaara ku fadhida oo aanu aada iyo aada runtuuga mahad celinayno shirkadda telesom iyo cisbitalka global mashruuca ay iska kaashadeen ee ku aasaasan in caruurta reer somaliland ee dhibaatadaas haysato runtii ay wax la qabtaan waana wax runtii cusub oo aanu noo jiri jirin sidii halkan laga sheegay xanuunada runtii macaankuu ka midka yahay dhibaato weyn bay nagu hayaan dadkeennana waxa weeye way kusii kordhayaan bulshadeenna waxay ahayd bulsho runtii dhaqan ahaan dad reer guuraaya dad aan maxay tahay magaalooyinka muddo dheer deganayn iminka isbeddel baa ku yimi mujtamaceennii iyo fikirkii ay arrintaa ka haysteen waxaad moodaa dadka reer somaliland inay u haysteen in xanuunkani inuu ku dhaco dad gaara qof weyn oo waxa weeye aan muddo dhaqdhaqaaq samaynin ama meel iska fadhiyey ama ladan ama waxa weye magaalo joogay laakiin xanuunkii imika waxa weye weji kale ayuu yeeshay runtii caruurtii hadday tahay hadday dadkii reer miyigahay reer guuraagaha tahay waxaad moodaa inuu si ballaaran u saameeyey bulshada reer somaliland iyaga iyo xanuunada kale runtii isaga la tacalluqaba marka in dadkii laga wacyigeliyo oo laga caawiyo waxa weye talo laga siiyo oo la dhiirigeliyo waxa weeye aada iyo aad bay runtii faa'iido u leedahay haddaynan mujtamac ahaan dadkeena dhibaataysan ee xanuunada haya ama dhibaatooyinka ay soo gaaraan aynan ku dadaalin sidaynu dhibaatada uga samata bixin lahay waxa weeye waxaynu noqonaynaa mujtamac hadha oo runtii dhibaatooyinka waxa weeye hagaagsiiyaan oo la dhaqaami kari waaya carruurtan dhibaatada imika haysato waxaynu u baahanay runtii inaynu caafimaadkoodii ka shaqeyno inay noqdaan carruur dhibaatadaa soo gaadhay runtii waxa weeye si fiican uga samata baxa si wanaagsan u kora si fiican waxa weeye howlahoodii u maamula haddii markaa caqligoodii iyo dadkii caawinayay iyo aan arrintaa laga caawin arrintaasi dhibaato weyn bay keenaysaa waxaanu aada iyo aada ugu mahad celinaynaa runtii shirkadda telesom oo hawshan maanta iska xil qaatay mana aha markii koowaada telesom runtii ay howlo caynkana ka qayb qaadato waxa weeye si joogtaa ayay bulshada somaliland waxbay qaybaheeda kala duwan uga gacan geysataa mashaakilaadka dadka la soo darsa iyo waxa weeye hay qaybaha kala duwan ee bulshada aada iyo aad baanu ugu ammaanaynaa waa mashruuc runtii khayriya oo ashar badani ku jiro
oo u baahan runtii in aad la isaga kaashado sii socodsiisa iyo siduu maxay tahay cagaha isugu taagalaana la iska wada kaashado dowladda iyo maxay tahay shicib iyo hay-adaha caalamiga waxaa kaloo aad iyo aad runtii u soo jeedin lahaa in cudur xanuunkan iyo xanuunada kale la midka ah waxyaalaha ugu badan ee lagaga hortagi karaa waxa weeye inay dadku ay wacyigelin ka haystaan inay ogaadaan inay exercise sameeyaan inay arrimahaasa ka mid ah runtii waxyaalaha lagaga hortagi karo taana dadka in laga sii wacyigeliyo anagu marka wasaaradaha runtii qaybteeda inaanu ka qaadano aad iyo aad baanu u rajaynaynaa xaruntanna waxaanu la yeelan doonaa xidhiir joogto ah waxaanu ka caawin doonaa qalabka maxay tahay sportiga dhalinyaradaas sidii iyo carruurtaasi ay access ugu heli lahayd ee waxa weeye jirkooda ay u heli lahaayeen waxa weeye exercise fiican ayaanu anaguna kaga qayb qaadan doonaa insha allah wada shaqayn aanu kala yeelan doonaa isbitaalka iyo shirkadda iyo wasaaradda caafimaadkaba aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahad celinaya telesom ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu carruurta ka dulqaado xanuunka iyagoo carruurtaasi si fiican u koray oo u fiicanna insha allah mustaqbalka ay noqon doonaan qaar dalka iyo dadkooda wax kusoo kordhiya aad iyo aadna ugu mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ويبقى مدامين كجنا دعاء الله وكوي لما جرو لا هذه ولا كاشنا صاوين ولا عفان تنصير قبل كل ده وقتها يضع مسؤولية الدولة نافريا وعن ويريا مسؤولين وزارة قدس يا أهل الشدة مرو شكر إسماعيل شكر حال إسماعيل بركات waxaan salaam aad iyo aad u qiimo leh halkan aan uga gudbinaynaa dhammaan bulshada halkan iskugu timi waalidiinta carruurta uu asiibay xanuunkan macaanka aynu u naqaano afka soomaaliga waxaa kaloo halkan aan rabaa inaan ka salaamo hay-adda global clinic health clinic maxaan ku idhahdaa xarunta caafimaadka ee global waxaa kaloo iyaguna mahad weyn halkan aan uga jeedinayaa hay-adda ama kambaniga telesom ee dalka somalilan iyo ummadda somalilan qiimaha weyn u leh madaxda wasaaradaha caafimaadka iyo dhalinyarada madaxa hay-adda WHO waa hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay kulligiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa haddii aynu ka gudubno xafladan daahfurka ah waa mid aad iyo aad u qaali ah oo muddo badan ummadda reer somalilan ay tabaysay gaar ahaan dadka la nool cudurka macaanka iyo qoysaskoodu waxay ahayd arrin ay aad iyo aad u tabayaan waayo xanuunkan waxa weeye xanuun culus waana xanuun ku baahsan iminka dalkeenna oo ilmihii naaska shaqayay iyo kii tallaabsanayay iyo kii 80 jirka ahaa intaba aad moodid inuu aad iyo aad ugu sii baahayo muddooyinkeena dambe waa arrin marka dhinac laga eegana dadkeenu aad moodo inay aad iyo aad dhinaca fahamka uga gaabinayaan mashkiladda ugu weyn ee aan ogahay inayna haysato waxa ay tahay ee haysato dadka qaba xanuunka sokorowga ama macaanka ama carruur ha noqdo ama ciroolo ha noqdo waxa weeyaan fahamka qoysaskooda iyo bulshadu ay u leedahay wax ka qabashada iyo taakulaynta dadka la nool cudurkaasi macaanka ayaa aad iyo aad u yar kaalmada ay ka helayaan iyo dhaqaalinta ay ka helayaan ayaa aad u hooseysa waxaynu u baahannahay inuu ka codsanaynaa hay-addan global ee isxilqaantay ee xarunta u furtay inay shaqada ugu muhiimsan ay qabanayaan ay tahay bal qoysaska ay la nool yihiin ama ay ka dhasheen dadka macaanka qaba inay tababaraan oo ay ku tababaraan sidii guriga gudihiisa ama bulshada gudaheeda loogu xanaanayn lahaa qofka la nool cudurkan macaanka oo kaalmo weyn uga baahan bulshada iyo qoysaskooda haddii ay noqoto goobaha shaqada
haddii ay noqoto goobaha bulshada isku dhex gasho haddii ay noqoto xarumaha iyo qoysaska gudahoodaba in dadkanu ay ka helaan gacantii ay uga baahnaayeen bulshadooda oo la baro balqaabka ugu habboon ee loola macaamili karo qofka la nool cudurka macaanka caruurtu way ka sii xag jirtaa waayo qofka weyn isaga ayaa islaalinaya laakiin caruurtu waxa weeyaan waxa ay dulsaar ku noqonayaan mar walba ilaalintooda iyo dhaqaaleyntoodu qofka waalidka u ah iyo ciddii ehelka u ah ee markaa gacanta ku haysa ilmaha waxaan ka codsanayaa xaruntan haddii ay dhinacii caafimaadka xoog iska saareen inay dhinaca wacyigelinta iyo la talinta afka qalaad counseling loogu yaqaano inay xoogga saaraan oo ay aad iyo aad dadka ula taliyaan talabaad waxaan ka codsanayaa dhakhaatiirta inay markay dadka wuxu sheegayaan ee ay wacyigelinayaan ereyada ingiriisiga laftoodana inay yareeyaan وحتى ميديا مركو كبحايا dadku inay fahmaan waxa ay u jeedaan iyo ereyga macnihiisa marka ingiriisiga xog bay dhaqaatiirta ugu farabadan tahay aqoontooda way ku soo barteen laakiin waxaan ka codsanaynaa dadka halkan ka dhageysanay marka media ka hadlayaan waa dadkii aan waxna qoran waxna aqrin waa kuwii mutacallimiinta ah waa kuwii miyiga waa kuwii magaalada waa kuwii beeralayda ah waa kuwii xoolo dhaqatada ah waxa qof walba waxa loo baahan yahay dhakhtarku markuu hadlayo inuu fahmo waxa uu u jeedaan ereyada ingiriisiga ah waxaan ka codsanayaa inay aad iyo aad u yareeyaan si qofku uu fahmo ujeedada ay leeyihiin iyo waxa u jeedaan intaas waa iga tusaaleyn barnaamijkan waa barnaamij khayri ah waa barnaamij saamidii sheegay inuu xoog ugu baahnay waxaan soo jeedinayaa aad u jeclaan lahaa marka aynu ka hadlayno dhinaca caruurta madrasadii bay tagaysaa wax lagu baranayay dugsiyadii bay tagaysaa wasaaradda waxbarashada lafteeda media maanta waxaan ka ugu marnayaa inuu jaaniskan ka faa'iideysanaya in macallimiin khaas loo tababaro caruurta baahiyaha gaarka ah leh ee iskuulada iyo malcamadaha tagaysaa si loogu xanaaneeyo iskuulka laftiisa waxa kaloo aad iyo aad halkan iyagana aan abiil uga dirayaa hay-adaha ka shaqeeya amba kambaniyada قوة electricity بحيث أما الليلة شركتها الليلة أيام يجنا هلك نقول بينيا فرينا إن القيمة دينس السمايا قيسس كحيستا أما أي قرود كنا يهين عهود يحفظوا تذكر عذرك سكرنا أما معانك ويا وقت والبدوين كل واحد يباهيه أنت لا جد الجريو إلا قبوتيو إلا إلى يباهيه مركا قيسكي waxa laga yaabaa inaan kari karin 24 saacadood daba ama layra u baahan shirkadaha laydka waxaan ku guubaabinayaa inay ku daydaan telesom oo ay u naxariistaan bulshadoodaasi u baahan korontada oo ay qiimo dhamis ku sameeyaan korontada ay siinayaan qoysaskaas inta markaan ka soo gudbo waxaan leeyahay bulshadeenu waa inay gacmaha iska qabsato sidii aynu u yareyn lahayn ama aynu u daryeeli lahayn dadkaas la nool xanuunkaasi sukuruga hay-adaha sida tooska ugu khusaysan dawligana waxaan ku codsanaynaa inay qayb libaax ka qaataan haddii aan nahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaanu ballan qaadaynaa inaanu kala shaqayno cid kasta oo maxaan ku dhahdaa wax ka qabanaysa arrintan iyada ah oo maxaan ku dhahdaa dadkeena xanuunka la nool ku qabanaysa caruur iyo cihoolaba inaanu aad iyo aad u soo dhaweyno gacan buuxdana aanu ka siino hay-adda telesom ayaynu halkan uga ducaynaynaa iyadoo barnaamijyo fara badan oo khayr ka qayb qaadatay aynu leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay ha idin ku daro maalkiinana ilaahay ha idin barakeeyo gacan qabashada maalin walba bulshada la garab taagantiina waa mid bulshadiinu xaq idin ku leedahay oo akhradii adduunyadaba abaalmarinteeda ah heli doontaa dadka ilaahay maalka siiyey ee reer Somaliland iyo shirkadaha waaweyn ee reer Somaliland inkastoo qaar badan ay ka qayb qaataan horumarka dalka oo ay ammaan gaar ku leeyihiin haddana guud ahaan waxay ugu baaqaynaa inay indha naxariis u jeediyaan dhinaca dadka la nool cudurka maxaan ku dhahay macaanka u baahan taageero joogto ah dawo joogto ah ilaalin joogto ah maxaan ku dhahay qalbi dhisid iyo dhiirigelin joogto ah iyaguna inay qaybtooda ka qaataan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhakhaatiirta iska xil saartay waxaanu leenahay waa mahadsantihiin waajibkii qaranku idinku lahaa ayaa gudateen waxaanu idinka filaynaa intan iyo in ka badanba inay aqoontiina aad gaadhsiisaan si aad kaalmo idinka laftiinu uga heshaan baaq wanaagsan la gudbisaan
cusbitaalada caalamiga hay-adaha samafalka kuwa UN-ka intabana waxaan ku baraarujinaynaa inay caawiyaan dadka reer Somaliland ee la nool cudurkaasi sokorowga ama macaanka qof walba siduu u yaqaano Telesom-na halkan hambalyo ayaan uga soo jeedinaynaa waxa kale oo ducaynayaa dadka la nool cudurka عفوا يقولوا وأن لا هي إلهي عافمات سريعة بشر رمضان حنوك هاي تذكر عافمات نحيل السيو وحن الكوب بابني والدي تعرض هذا شيء حنفصل شبينا رحمة الله ويفرطها وحلقي أبو عمود إن يدبر بدل نورادان وحلقي أبو إن كبك سلام وحوي ينقف استسمر كيسان الإيديا وحن الكوب بابني إن السمر يدلقات فربضن يا لكان إلهينا هاي نقاصره هوش بلادنا هاي سنة وأنا من السنتي waxaan rabaa u hadlayo diraya ama maqaaya Soomaaliyeed oo horeeya xubnaha golaha dowladda la socday wasiirada wasaaradda qoyska horeyso agaasimaha guud wakiilka Soomaaliland ee hay'adda WHO marwaasiya dhaqaatiirta Dr. Ciise saxaafada dadweynaha shaqada ee ka soo qaybgalay iyo waalidiinta xanuunkan maanta carruurtoodu ay leeyihiin ama iyagu leeyihiin xanuunkan waxay ahayd saa iyo maalin wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته